saaka waxaan kala taagannahay annagoo ah beelweynta makaahil waxaan taageersannahay go'aankii howlgaday bursuu qaatay ee saami qaybsiga ahaa ciddii jabisay go'aankaana sharci baan talaka ka maraynaa salabasna ka qaadaynaa lagday bursannahay waxaan dowladda u sheegaynaa Soomaaliland madaxweynaha ku-xigeenka cid kasta qusayso in go'aanka gaday bursi uu yahay saami qaybsi ilaa uu helo in dhacay doorasho waxaan halkan ka sheegaynaa mursi waxa weeye gadabuursi marka la yiraahdo waa isku dan waa isku tol meel wala yaala oo wala degan oo kala maarmayn dawladda iyo shacabkuna waa kuwa istugsanaya ee dantu ka wala dhaxayso ma aha kolbo oday socda madaxweynaha Soomaaliland waxa leeyahay Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka Saylici waxa weeye tolkiin dawladda idin le balaaran ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aad u tihiin ma aha shakhsi qofa ama afar wax la tirin kara ma aha waxa weeye badweyne Soomaaliland wala yaala intuu leeyahay waad ogtiin waad ka weyntiin oday soo dhuudhuuqsada oo dawladda iyo shacabka inuu isku jabiyo doonaya oo ka faa'iideysanaya oo naftiisa u hadlaya oo u hadlayn dantii badweynaha iyo dantii dawladda inaad dhagaysatiin wata waa nasiib daro koow sida awgeed waxa weeye waxaan jecelahay annagu haddaan gadabuursinahay meel quru ka wala guuraya muddo dheer buu ku jiray cabasho badan iyo wuxuu tabanayay qaybsi awoodeed oo dawladeed annagu waxaan xusbiga kulmiye ka tirsana ee u soo halgamay ee kaadida u soo cabay ee la daga soo saaray dawladda qayb ka haabanayn maadaama sidaa ahayd nabaduun baan rabnaaye wax shara ma rabno saami qaybsigii gadabuursi doonayay annagu haddaan nahay samaroon ama gadabuursinahay waan rabnaa kuwa inile saami qaybsi ma rabno ee annagu waxaan rabno doorashada waan ku ridaynaa waa kuwa dawladdii isku jabinaya badweynaha in madaxda haddaad tihiin iyo dawladda haddaad tihiin inaad ka rarsaysiin waxaan loo dhannayn uun tolu dhannayn oo in beeli u dhannayn uun gobol u dhannayn inaad ka rarsaysiin horta waa nasiib daro waayahay shicibka Soomaaliland ma aha shicib 10 oday xukumaan anuu waxaan leeyahay haddaan gadabuursinahay saami qaybsigii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka xukuumadda dawladda waan rabnaa in la qanciyo rag hadduu geed tagu wala dacwiyo ninna garta weelanna waayaa waa nasiibtaasi inaan kafool wala hadalno oon dalka nabadda ka shaqayno oon jiritaanka dawladda ka shaqayno oon danteenna ka wala hadalay way fiican tahay laakiin maaha qolba afar odayo anaa sidaa ku hayay waa dawladda iyo wax la isku jabinayaa badweynaha waxa weeyi hadalku wuxuu ku gun yahay oo murtidu ay tahay saami qaybsiga 20 sano ayaan sugaynay annagu 20 sano ayaan dul qaadanaynay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan ka codsanaynaa iyo wasiiradaba waxaan ka codsanaynaa gadabuursi 20 sano dul qaatay nabad lagama doonayo maanta ninka hadila afar oday oo meesha hadila lama matalaan annaga lama matalaan waligoodna lama matalaan shacabkiiya waxay kala dilayaan dawladda iyo dadnimada Soomaaliland inay dhisnaato haddii la doonayo saami qaybsiga cadki aan lahayn maanta waa inaan helo sidaa anigoo 80 jir odayaashii samaroon ayaan leeyahay waxaan halkan maanta ku joognaa beelihii gadabuursi beela ka mid ah oo bahweynta gadabuursiya khaasatan makaahil aad bayna boqolkiiba boqol cid ka maqan beesha makaahil ma jirto sidaa darteed waxaan halkan isku soo taagnay ama beelahan makaahil ay matalayaan guud ahaan shirka gadabuursi uu xukuumadda uu la hortegay ee lagama baaqdaanka biyo kama dhibcaanka ah ee ah saamiga waana ku taageersannahay ka mid baana nahay waana meel kaliya uga soo wada jeednaa hadday tahay dhacaynin waxa weeyi isaaq keligii uma laha xaq in uu meel mariyo saami qaybsi la'aan doorasho in la qabto xaq baa loo wada leeyahay hareerahana laga wada hayaa dawladda Soomaaliland waa dadka u dhaxaysa hadday taa ahayn wax ka suura galaya ma laha sidaa darteed
ciddii kale ee tidhaahda ama dalab u yeeshayna waxa weeye waa cid wax uun tabanayso macnaha qoori qardaba iskama dayso hadday makaahil aw yidhi hadal iyo hadduu sabarroo kaliya hadal yidhiba wax qiimo leh oo macnaha aad ku beer la xawsato isaaq ahaan ama dawlad ahaan oo macnaha aad raalli ku ahaataan ama aad macnaha idinku noqotay inay macnaha saamigaasi aw meesha ku jabayo oo hadalkaasi uu meel marayo wallay ka tahay anugu waxaan ka horraysiinayaa hadalkayga waxoogaa yaroo geeraara dadka awdal ku nool iyo wakiilladay dirsadeen dariiqay marayaan dacalkii uga leexda dubbo weyn iyo qaarun daab inay la dhacaan bay doonayaan samaroone dambeeyow isilaali waxaan la yaabanahay nin baa yidhi war waa yaab maxaad la yaabtali ninka dibiga keliya beerta qodayaan la yaabbuud go'aanka iyagu hadalka badin maayo waa saami qaybsi halkan maanta waxaan u joognaa shirkan jaraad u qabananaa waxa weeye arrimihii beriyahanba jiray ilaa maaragtay 2014 soo bilaabay ee ahaa awood qaybsi macnaha dadka awood qaybsiga waxa iskaga jira saami qaybsi macnaha waxa weeye awood qaybsi weeye inay ummaddu wada lahaato wixii awood qaybsiga wixii lagu caawinay ee yuudo kale lacag bay bixisaa gobolka waxba ugama qorshaysna madaxweyne ku xigeen baa gobolku leeyahay la yiraahdo madaxweyne ku xigeenku macnaha awood uu leeyahay oo uu dastuurka ku leeyahay ma jiraba haddaan la furayn dastuurka oon awood qaybsi meeshan laga helayn waxan waxba kama soconayaan takale labaad waxa weeye waxa la yiri dawladdu ergaan hay baydadeen madaxweyne musabixi xisbiga wadani xisbiga maaragtay ucid oo isku qola ay yireen ergaana ergada odayaasha kolkay dumarka kala kufsadaan bay erga noqdaan dawlad erga u noqota shicibkeega aqliga ma gasho marka waxaan leenahay wixii awood qaybsiga wax gobolka jooga imiga oo Soomaaliland gobolka awdal gadabuursi iyo ciisabaha noqday inaan sargaala oo soddon jiri ma jiraan odayaashii dawladdiisa aad bakaar ka hadhay ayaa lagu taxo way wada dhintay nin qolo sargaali maanta ma jiro oo hayaysan oo daayar nin daamacad loo jiray midna kuma lihin shayba kuma lihinba marka waxa weeye maadaama aanay meeshan awood qaybsi jirin imikana odayaal baa la yidhuun maaragtay ergaanadeenna horgeedii baan qaadanay yidhi waxba kama jirayaan haddaan dadweynaha nahay haddaan dhallinyarta inta aan ugu weynahay nahay marna yeeli mayno in la yidhaahdo ree hebel baa aqbalay ree hebel baa diiday marna ma noqonayso haddaan gobolka awdal nahay saami qaybsi haddii la waayo marna ma yeelano in la galo waayo saddexdii hore xildhibaanba awood way yeelan waayeen waxna waa laga dhigaysan waayey oday baa loogu sheekaynayaa kolka dambaa la idiin furi doonaa waxa 30 sano la furi waayey kolka dambe la furay waa goorma ma kolka meesha lagu kala tagaa marka waxaan leenahay caalamkana aan ogeysiinanaa oo yuudaan ogeysiinanaa in saami qayb awood qaybsi la helo mooyaane inaan lagu taageerin Soomaaliland shay ayaan aad iyo aad u codsanana oo cod dheer iyo cod gaaban aan ugu yeedhanaa aan annaguna diyaar u nahay maadaama aan nahay salaliya awdal inaan saami qayb inaan yeelaynin doorasho la galo oo baarlamaan maadaama kuwii hore waxba tari waayeen waxba laga dhigaysan waayey culimo laga dhigaysan waayey caamo laga dhigaysan waayey ana lasba dhigaysanaynba lasma dhigaysanayaba maadaama la isdhigaysanayn 13 xildhibaan ku yeesha 13 oo dastuurkuna ha noqdo fartaag marna yeelmin waxaan ka mid ah anigu odayaashii meesha tagay ee ma garanaysaa 23 qof ee odayaashii ka qayb galay baan ka mid ahaa kullay ammaan baa meesha saddex xisbiba ay ku soo ballameen ay noo jeediyeen madaxweynuhu u horeeyo gudoomiyaha xisbiga wadani gudoomiyaha xisbiga wuxuu ku xigo ka xisbiga wadani ha u dambeeyo ninkii dhulbaantay Cabdirasaaq Khalife ee afartan nin baa hadlay afartan nin odayaasha waxay lahaayeen inuu reer awdal baa lagu jiibsadaa reer awdal baa waligoodba furaash lagu jiibsadaa maantana waxaan idinka maganahay furaashkii labadooda ee saamiga ma garanaysaa soo qaaday yiri annaga qaadnayna marka horeba ka gaar bay haayeen codka gobolka iyo aragtida gobolka oo dad hore loola sii hadlay oo hore looga sii shaqeeyay bay hayn laakiin odayaasha kale intooda kale baanu guntaanagu isku mid bay haayeen oo dhinac bay ka wada jeedeen labada oday mooyaane labadooday gobolka markaa waxba ka bedeli maayaan haday dawladda Soomaaliland ku qanacsan tahay laba oday oo codka dadka daba furaya oo loo afduubayo majority waa ka hadlaya
beesha makaahil iyo odayaashii samaroon halkay mareen baan annaguna marana kamana leexanano mur hadday ka qadhaadhahayna saamigu waa naga go'an yahay ama ha la hadlo ama cidi ha ka daba hadasho ama shirar jaraa'id oo la qabanayo waan maqlo hadla leeyahay taageera suldaamadii oo labada iyada suldaan qolol xalay wala waan maqlay laakiin arrintaasi arrin aan qaadanano oo aan aqbalano maaha makaahil haddii aan nahay oo lalahaa hadda ka horre makaahil baa jebiyey wax jebiyey waxaan ka hadlaynaa oo maanta makaahil halkan ku dhan yahay waxaan raacsannahay annagu gadabuursi halkii uu maro iyaan maanta haddii laydhaa marsannahay raggii hore ee gadabuursi halkii ay ka hadleen baan annagu maanta ka hadlaynaa horta waxa weeye dhada roob ma noqoto dadkanna waxa weeyaan samaroon baa kala jabay iyo qaar baa qaatay waxa ay wax shaqaynaysa maaha samaroon waa mid annagu haddaan nahay beelweynta makaahil lafdhabarta samaroon halkay martay baan marray taasaana ku qanacsanay waxaan yeelayna maaha saami qaybs haddii la diiday jiritaanka awdal baa la diiday